Assalamu alaikum. Soo dhawaada dhamaantiin ardayda ku xidhan Kaabe Technology and Language. Ku soo dhawaada cashka maanta. Cashkeeni afraad ayaan maanta aan sii wadi doonaa idin leeyahay. Salaajkeed soo dhawaada meel kasta joogtaan aad iyo aad ayaanu idin salaameynaa waanu idinka mahadcelinaynaa sida quruxda badan aad nala socotaan. Intaanaan cashka aanan bilaabinin waxaan ka codsanayaa dad igu cusub tahay inaad channelka subscribe gareyso, Facebook-na aad naga soo follow gareyso, sidoo kale aad video-ga like gareyso haddii aad ka heshay saaxiibadaana la wadaag saaxiib. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay daawashadaada. aan ku sii soconno waxaan ku soo jirnay English basic level-kii aan soo bilownay lesson 4 cashka afraad English vocabulary. waxaan ku qaadanaynaa English vocabulary-geeni oo halkii ka sii soconaya waa qaybtii afraad. waxaan ka soo hadlaynay oo aan saddex casharo hore kaga soo hadalnay names of things and their meaning, macnahoodii iyo waxa weeyaan human and their meaning. names of human magacyada bini'aadanka ayaan ka soo hadlaynay and their meaning iyo macnahooda. marka aad bay u ballaaran yihiin oo intan iyo in ka badan toona maxay tahay laguma soo koobi karo. yelkadeeda waxaan isku dayaynaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan u soo koobno dhammaantoodba. waaye maanta waxaan ka sii bilaabaynaa ereyga halkan idinka muuqda ee family waa qoyska ama waa reerka. ereyga xiga ee 77aad madam waa murwo ama waa gabadh murwo ah ayaa la mad waalan. madman nin waalan. madman nin waalan. manhood ninnimo. manhood waa ninnimo. an officer waa sarkaalka ama waa xafiishayaha ayaa la yiraahdaa an officer. ereyadu way isku macnaysan yihiin kelmadii aan soo qaadanay iyo pronunciation-kii iyo meaning-kii intaas ayaan u soo qaadanay iyagoo PDF-an haddaad u baahan tahay waxa weeyaan ilaa 2000 oo erey oo saas oo kale isugu tarjuman waxa weeyaan waa lagu soo diri karaa. haddaad u baahan tahay waad ila soo xiriiraysaa telephone number-kan ayaad igala soo xiriiri doontaa idin leeyahay. okay aan sii wadno. ereyga 11aad waa an officer xafiishaya ama waa sarkaal ayaa la yiraahdaa an officer. an office keeper na sidoo kale waxaa la yiraahdaa xafiishayaha ayaa la yiraahdaa an office keeper. nephew waxa weeye waa wiilka walaalka ama walaasha ay dhasho. sidoo kale ilmaabtidana waxaa la yiraahdaa nephew ayaa la yiraahdaa. niece waa gabadha walaasha ama walaalka uu dhalo ayaa la yiraahdaa niece. tailor waa dawaarle. tailor waa dawaaraha. driver waa dareewal. driver waa dareewal. waiter waa mudalab. waiter waa mudalab. waa names of human and their meaning. names of human, names of people ayaan kusoo guda jirnaa. secretary waa xoghaya ama waa xoghayso. barber waa timajare ama waa ra'iis leh. cousin waa inaadeer ama qofka ilmaadeerka tiin waxaa la yiraahdaa cousin ama cousin. bride waa caruusad. bride waa caruusad. bride waa caruusad. bride groom waxa weeyaan waa caruuska ayaa la yiraahdaa bride groom. bridesmaid waa marxiisada ayaa la yiraahdaa bridesmaid. bestman waa ninka marxiiska ayaa la yiraahdaa bestman. bachelor waa doobka ayaa la yiraahdaa bachelor. weki waxa weeye waa qofka gaagaalaha ah ama marka maxay tahay gaagaalaha la yiraahdo ayaa la yiraahdaa weki. warlord waa dagaal ooge ama waa qofka dagaal qabqablaha ah ayaa la yiraahdaa warlord. war manager waa fidmo walaha ayaa la yiraahdaa war manager. warmonjar ayaa la yiraahdaa fidmo walaha. an elder waa odayga ayaa la yiraahdaa an elder. parent waa waalidka. parent waa waalidka. teenager waa 12 jir ama waa dhalinyaro. teenager 12 jir ama dhalinyaro. pupil waa ardayga ama pupils waa ardayda. pupils waa ardayda. pupil ardayga weeye. passenger
waa qofka rikaabka rara ama waa rikaabka dadka ah ayaa la yiraahdaa passenger waa rikaabka dadka ah. Neighbor waa deriska. Neighbor waa deriska. way ereyga 105 master waa sayid ama waa mudane. ereyga 106 waa prostitute waa naag jirkeeda ka ganacsata ayaa la yiraahdaa prostitute ayaa la yiraahdaa. harlot waa inanta xumaata ayaa la yiraahdaa harlot. a prophet waa nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaa la yiraahdaa prophet. an author waa qoraaga qofka wax qora ayaa la yiraahdaa author. a washman waa waardiyaha ayaa la yiraahdaa a washman. a pilot waa qofka diyaaradda kaxeeya ayaa la yiraahdaa pilot. messenger waxa weeye waa rasuulka. peace and blessing of Allah be upon him. a farmer waa beer qodaha ama waa beer walaha. a fisher waa kalluumaystaha qofka kalluunka ka ganacsada ama kalluumaystaha ayaa la yiraahdaa a fisher. a brave waa geesiga. a brave waa geesiga. a coward waa fulayga. a coward waa fulayga. a player waa ciyaartooyga. a player waa ciyaartooyga. mermaid waa gabadh maanyo ayaa la yiraahdaa a mermaid oo gabadh inta badan badda ku jirta ayaa la yiraahdaa mermaid gabadh maanyo. a broker waa dilaalka ninka dilaalaha ah ayaa la yiraahdaa a broker. a midwife waa umuliso. a midwife waa umuliso. a leader waa hogaamiye. a leader waa hogaamiye. halkaas ayaan mawduuceena ereyada names of people aan maanta ku joojinaynaa. intaynu mawduuca xiga aan ku kulmi doono waxaan soo qaadanaynaa ereyo badan oo kala gedisan insha Allah. idama alle haday kuwan dhamaadaan waxaan ku xijin doonaa names of animal. sidoo kale waxaan ku xijin doonaa names of vegetables and fruits. waxaan ku xijin doonaa magacyada xayawaanadu ay leeyihiin. waxaan ku xijin doonaa magacyada ay baabuurtu leedahay. waxaan ku xijin doonaa magacyada ay leeyihiin qudaarta iyo midhaha oo Ingiriisi ah. mid qayb walba waxaad ku baran doontaa ereygii iyo dhawaaqii iyo macnihii ayaan u soo gudbin doonaa. haddii aad buuggooda u baahan tahay kumanaan kun oo erey oo kala gedisan ayaanu idiin haynaa. markaa waad nala soo xiriiri kartaa. fadlan waxaan kaa codsanayaa fiidiyoga inaad like garayso channelkana aad ku soo biirto. aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashadaada casharada Kaabe Technology and Language. haddaad Facebook naga daawanayso iyo haddaad YouTube labadaba naga daawanayso aad baanu kaaga mahad celinaynaa. fadlan soo follow gareeya oo ku soo biira channelkeena Kaabe Technology and Language. intaan mawduuciga kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi tacaala wa barakaatuhu.